Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halka aad nagala socotaan waa Mashiish Media. Fadlan subscribe. Qisadani waa qiso xaqiiq ah oo si run u dhacday, waxaana ka sheekeynaya shaqsigii ay ku dhacday oo markaa nin weyn oo culimo ah. Waxa uu yidhaahday, markii aan jiray 6 sano, waxaa la noolaa waalidkay, hooyaday iyo aabbahay. Way is murmeen oo way isqabteen, way kala tageen. Kadib mid kastana gooni ayuu u guursaday. Aabbahay had iyo jeer wuxuu igu qasbayay in aan adeeco xaaskiisa, taasoo aad iyo aad ii xumayn jirtay, dhaqan xun igula dhaqmi jirtay. Hooyadayna sidoo kale ninkeeda aad iyo aad ayuu ii nacbaa oo ima uusan jeclaan. Kadib anigoo meel dhexe ayaan ku dhumay oo waxaan la qabsaday iskuulistayaal iyo ciyaalka xaafadda, kuwaas oo walow ila wareegay. Markuu aabbahay la kulmo oo i weydiiyo xaggee jirto, waxaan dhihi jiray waxaan la joogaa hooyaday. Markii hooyo i weydiiso xaggeed ka baxday, waxaan dhihi jiray waxaan ku maqnaa aabbo. Arrintaas ayaa in muddo ah aan ku jiray, waxaana sii galay nolol khatar ah oo dangerous ah oo dhibaato badan. Markii hooyaday iyo aabbahay ay sii kala jeesteen oo nin kastaba noloshiisa uu raacsaday, in muddo ah ayaa intaasi ku jiray. Maalin ayaa waxaa dhacday, aniga oo saaxiibaday la joogo, khamrigii iska cabinay, darooga iyo xashiish ka dharagnay oo damaashaad iska jirna ayaan soo baxnay, annaga oo ku fakarayno madadaalada adduunka ayna sirtay. Si kadis ah ayaa waxaan u galnay shil u galnay. Gaarigiina 4 mar iyo 5 mar in ka badan ayuu iska daba gadoomay. Kadibna 4 ayaan ku saarnayn, 4 shaydaan aan gaariga ku saarnayn. Aniga unbaa badbaaday, 3dii kale saaxiibaday waa ay dhinteen. Waxaan soo baraarugay aniga oo isbitaal jiifo ayaan soo baraarugay oo meel walba ka jaban. Kadib markii aan fakaray noloshii aan ku jiray iyo sida aan ku jiray iyo soo Ilaahay ii badbaadiyay, aad iyo aad ayaan u naxay. Ilaahay baa u toobad keenay. Waxaan ku dhahay maanta, Ilaahay ayaa ku jecel. Haddii uu qaato xumadaas uusan kugu dilin. Wuxuu iga badbaadiyay 2 nolol oo geeridii gaariga iyo geeridii cadaabta. Kadib markuu aan ogaaday inuu Ilaahay jecel yahay, anigana Ilaahay ayaan jeclaaday. Masaajidkii ayaan iska imaaday. Waxaan bilaabay in aan Ilaahay baryo oo u toobad keeno oo Ilaahu iga toobad aqbal, Ilaahu ii dambi dhaaf aan dhaho. Quraankana aan in badan aan aqriyo. Markaan soo xasuusto geeridii aan ku sugnaa in aan ku dhiman lahaa, aad iyo aad ayaan u nixi jiray, waana ka murgoon jiray. Ilaahay ayaana in badan ugu mahad celiyay in uu iga badbaadiyay geeridii khaatumada xumada wadatay. Wixii maalinkaas ka dambeeyayna waxaan la saaxiibay kitaabka akhrintiisa iyo masjidka. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.